Waa maxay maalinta jacaylka Valentine's Day? Bisha February 14-keeda sannad kasta maanta oo kale ayaa loo aqoonsaday inay tahay maalintii jacaylka adduunka Valentine's Day, waxaana la isku diraa salaamo, ubaxyo qurux badan iyo hadiyado qaali ah oo ay isdhaafsadaan lamaanayaasha isjecel iyo kuwa iskaba. Haddaba maxay tahay ujeeddada dhabta ah ee ka dambaysa munaasabadan iyo xafladaha lagu maamuuso maalinta caashafa lamaanaha iyo jacaylka dunida? Marka ay dhagahaaga ku soo dhacdo ereygan Valentines, waxaad markiiba dareemaysaa in magacani macno ahaan u dhadhamayo inuu ka soo jeedo diinta Kiristaanka ama caadooyinkii hore ee Roomaanka. Haddaba aan isweydiino, yuu ahaa Valentines? Maxaase loo dilay haddana loo xusaa ilaa maanta oo looga dhex arkaa magaciisa meel walba oo jacayl lagu sheegaa, xafladona ay ugu dhigaan bulsho kasta, khaas ahaan dhalinyarta isjecel? Aan dib ugu laabanno taariikhda. Qarnigii 13aad dhalashadii Nebi Ciise kadib calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa jiray boqor la dhihi jiray Kalodis oo ka talin jiray dalka Talyaaniga. Boqorkaas wuxuu amar ku siiyey dhalinyarada in aysan guursan karin, kuwaasoo ahaa ciidan uu ku ilaashado awooddiisa maamul iyo sharafta boqortooyadiisa. Balse nasiib darro waxaa amarkii boqor Kalodis ka hor yimid oo xaqdarro u arkay ninkan geeridiisii ay u dabaaldegaan maantay lamaanaha isjecel iyo guud ahaan dhalinyarta. Waa Valentine. Wuxuuna bilaabay inuu si qarsoodi ah u guursado dumar fara badan. Haddaba markii ay soo shaabaxay guurkii qarsoodiga ahaa ee Valentine, wuxuu boqorka amray in la geeyo xabsiga lana daldalo Valentine. Sida ay sheegaan dadka taariikhda qora ee Valentine yaqaana, waxaa ku dhacay xilligii uu xabsiga ku jiray jacayl haddhaaf ah oo uu u qaaday gabar dhalinyaro ah oo aad u qurux badnayd, taasoo ahayd gabar uu dhalay ninkii xabsiga ka talinayay, taasoo soo booqatay wakhtigii uu ku jiray xabsiga. Haddaba waraaq jacayl xambaarsan oo uu ku saxiixnaa Valentines kadib markii la daldalay ayaa laga helay qolkii uu ku xidhnaa. Warqadaas oo ciwaan kaga dhigay ka socoto Valentinkaagii wixii maalintaas ka dambaysay, si loo xuso sannad guuradii ka soo wareegtay markii la daldalay Valentines oo ku beegan 14-kii bisha February sannadkii 217-kii dhimashadii Nebi Ciise kadib ayaa la go'aansaday in la xuso maalintan oo kale oo la isdhaafsado ubaxyo, salaamo iyo hadiyado qaali ah, ilaa heer ay gaartay in ay noqoto maalin lagu cabbiro lamaanaha isjecel jacaylka ay isku qabaan inta uu la eg yahay. Oo haddii maalinkaas qof ayaga ka mid ah hilmaamo, loo micneeyo inuusan jacayl haynin. Marka laga hadlayo arrimaha jacaylka, waxaa dhacda doodo aan xal loo helin. Inta badan waa la isku maandaafaa maadaama aan la aqoonin sida loogu macnayn lahaa loona fahansiin lahaa dadka aan weli jacayl jaribin oo jaahilka suuq jooga ah iska ah. Dareenka ay sheeganayaan lamaanayaasha isjecel, sida farxadda, macaanka, murugada iyo xanuunka ay isla wadaagaan, hoygana u yihiin maalin iyo habeen haddii ay iswaayaan. Haddaba daawade, maalinta jacaylka adduunka ma loo dabaaldegi karaa oo ma tahay maalin mutaysatay in loo dabaaldego? Haddii aad caqligaaga si sax ah ugu laabatid, waa maya, dhowr sababood daraadood. Kow, horta haddii aan nahay ummad Islaam ah, waa inaan ka soo horjeesano tilaabo walba oo ay qaadaan dadka ah Kiristanka iyo Yuhuudda, oo waa in aanan qiimaynin waxa ay qiimeeyaan iyo waxa ay buunbuuniyaan, maadaama aan kala nahay dad aan diin ahaan iyo dhaqan ahaan waxba iskugu darsanayn, adduunyo iyo aakhirana aan isku wada maraynin. 2, nin Masiixi ah maalintii uu geeriyooday in lagu farxo oo hadiyado la isdhaafsado, jacaylna la isku muujiyo oo lamaane kasta ay si gooni ah u qadariyaan, taas diinteenna wanaagsan oo Islaamka ah ma oggola oo waa mamnuuc. 3, ummadda Islaamka ah waxay leeyihiin maalmo ay si gooni ah u xusaan oo ciid ah, sida Ciidul Fitriga, Ciidul Adxaa iyo asbuuc kasta maalinka Jimcaha oo shaqada iyo waxbarashada nasiino laga qaadanayo. Intaas waxaa dheer in famil kasta iyo waddan kasta ay leeyihiin maalmo ay si gooni ah u qadariyaan, hadiyado iyo xafladana u wada dhigtaan. Waxaa ka mid ah maalinkii ay lamaanaha iskaba isguursadeen, dhalashadii carruurtooda iyo wixii la mid ah. 4, Valentine waxaa loo dilay inuu ka soo horjeestay sharcigii waddankiisa. Waxa uu sharcigaas ku dumiyeyna waxaa la sheegay inuu yahay jacayl uu u qaaday dumar fara badan oo uu guursaday. Dadka isjecel waxay ku doodaan maantay in qof walba hal qalbi leeyahay. Sidee ku suurtagashay in Valentine oo lagu tilmaamo inuu ahaa aabbahii jacaylka inuu jeclaado waxaasoo dumar ah weliba wada guursaday?
Sow lama dhihi karo Valentine naftiisa ayaaba ahaa adowgii jacaylka, waa haddii dhab loo aaminsan yahay inuusan jirin qof laba qalbi leh. Sow lama dhihi karo ninkii tumashada iyo baahida jinsiga in si qarsoodi ah lagu kala dhammaysto sharciyey wuxuu ahaa Valentine. Su'aalahan waxay quseeyaan oo aan ku baraarujinaa dadka ku guda jira una dooda in jacayl yahay wax dhex mara laba qof oo keliya. Haddaba walaalaha muslimiinta ah isdowra, inta Ilaah idinku waajibiyeyna ka soo baxa marka hore, intaas ayaaba howl idinkugu filan, waana caqli xumo inaad isku mashquulisaan wax aan la idin dirsan, ajar iyo xasanaad midna idinkugu jirin inay dembi, carro rabi iyo cadaab aakhiro idin horseedo maahane.